حديث كما كان حربنا إن وحر بالاستاغنا لفظا تفليل ما دام مالين دويد waxa dhacay nina muhaadara qabtay markaas lafdigan tafliid ay bil istaagay markaas wuxuu yiri lafdigan wuxuu tusinaa rasuulku inuu injir lahay sallallahu alayhi wasallam waliyaadu billah wa ilaahi laga magan galo marka bal in culimadu waxay ka yiraahdeen lafdigaas dhowr daqiiqo aan ka hadalno tafliid ra'sahu marka ugu horeysa horta waxa muhiim ah in la ogaado shariicada xagee mister oo ah oo xagee laga qaadan karaa markii la rabo sifaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam in la sugo ama tilmaamaha rasuulka kamida sallallahu alayhi wasallam in la sugo oo qof uu doonayo inuu yiraahdo tilmaantaas rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam xagee masdar tashriic ah xagee laga qaadan karaa waxa jira cilmiga usul fiqhiga marka laga hadlaayo sheekhan la yiraahdo imaam shaatibi oo saaxib al-usula sheekhan qaariga ma waa sheekh usuliga aha shaadibi qawaa'idka culimada dhan ay isku waafaqsan yihiin qaacida kamid ah soo qaaday markaas wuxuu yiri man ya'khudhu al-adillata min atraf al-ibarati shar'iyya qofkii wuxuu yiri daliil ka qaata cibaara oo xagga sharciga ku soo aroortay kaligood hal cibaaro dul istaag laakiin muqaarana ma uusan sameeyno adilla fara badan ma uusan baarin mana isbarbar dhigin qadiyadan ama mawduucan ama mas'aladan qofku uu ka hadlaayo inta ahadiis oo ku soo aroortay inta aayado ku soo aroortay aqwaalul ulama muqaarana kuma sameeyno hal cibaaro darafkeedu istaagay darafka yaani waxa weey waa cirifka geesu ka dul istaagay cibaaradii wala yanzuru ba'daha bi ba'd cibaaraadkii sharciga qaarkeed uusan u fiirinin uusan bandhigayno muqaarana uusan sameeynin wuxuu yiri shaadibi fayushiku an yazilla qofkaas waxa degdegayo dhuu yiri inuu kufo oo uusan birrixdo waxa sharciga simbirixay ugu dhacdo hadduu hal lafdi kaliya intuu dul istaago oo yiri halka lafdiga waxaan ku sugaa xukun sharci ah ama halkaas lafdiga waxaan ku sugaa sifo kamida tilmaamihii rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo lafdiga dul istaagayo oo muqaarana aan sameeynayno adillada kale aan isbarbar dhigaynin walaysa min sha'ni ar-rasikhin wuxuu dadka raasikhiinta oo cilmiga ku xiideystana sha'nigooda sidaas ma aha markay doonayaan xukun sharci inay qaataan muqaarana ay sameeyaan adillada isbarbar dhigaan ولذلك الشاطبي سوى قاعدته وتوحو يري فكان العضو الواحد لا يعدي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا وحير هل حبن أو حبنها الشريعة أو ككوبان تاي أو لدول استاغو هل كاس حبن لغما قادن كرو حكم شرعي لغما قادن كرو فمتبعه قفك هل كاس حكم راعنا ومقارنة أن كسمين الأدلة كلا أنفيرين متبع متشابه وهو راعي متشابه أي راعي وهو كتغي وحيانه اسكعدايو محكم كاهايو واضحها وهو محكم كاهايو واضحها كتغي maxaa hal cibaaro sharciga ku soo aroortay umbu dul istaagay ayadan xuun ka qaadanahay meeshii laga rabay muqaarano badan inuu sameeyo sidaas awgeed marka waxa laazim ah lafdigan tafliil fahamkiisu wuxuu u baahan yahay muqaarana sharciya iyo muqaarana luqawiya labadaba in la helo markaas kabacdi waxa nooga soo ifbixi kara xukunka xaqiiqadiisa inaan gaarno taas nooga soo ifbixi karto muqaaranada marka haddaan hormarino oo xagga sharciga tafliil ra'sa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa la ogsoon yahay inta ilaahay uu abuuray subhanahu wa ta'ala qofka ugu uduga badnaa oo ugu carafta badnaa inuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahadiis fara badan oo la soo koodi karin ayaa arrinka tusinaya waxa kamid ah xadiiskii imaam ahmed rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa musnadkiisa uu ku warinayo min xadiisi Anas ibn Malik oo yiri Anas ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة عرف أن أقول ما أنا أرين أطيب كأذق بدن أو كوناك بدن من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت رسولك صلى الله عليه وسلم وهكذا سلاس وكلا إمام أحمد رحمه الله تعالى مسند كيس وكورنا خصوصية الشعر كرسولك صلى الله عليه وسلم إن أذق جارة وإسكال هاجر تنت رسولك سجارة أي أود بجرتي أو يعرف جرتي إمام أحمد في مسند كيس كوريي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب رسولك صلى الله عليه وسلم تنتي سنة آدي أبقنيد آدينا أدق بقنيد
هذا يعرف هذا بخصوصية قارة وحكوسة أرورتي شعر كأي تنت رسولك صلى الله عليه وسلم ديب قارة إن إلهي يسميه سبحانه وتعالى وإدب قارة إلهان جفتي وأكلوا الدارمي كتاب كيس السنة كيس السلاس وكلا وكورين لم يسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا إلا عرف أنه قد سلكه رسولك صلى الله عليه وسلم الطريق صوممره إلا الطريق هدو صومره ولا قرن جري أو ولا فهم جري طريقاس إنه مري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنه صومري ولكثرة رائحه رسولك صلى الله عليه وسلم روائحه يؤذي سيدبك كسو كرايا عرفت سأوجد الطريقة بل لقد ريم جري وعلامة أسطال أيها هنجرتي إنه مري رسولك صلى الله عليه وسلم من ديب عرقه رسولك بيجت كيس ديب كيس أوجز أي وضد وضن أي سوء جرت أي سوء عرف جرت تاسمركا وحيت المعنى يعني مقارنة الشرعية يعني إنه يسأل بيان كريمبا رسولك صلى الله عليه وسلم إنجر وحيال اللمدة إنه يسأل بيان كريم ما دام تنت خصوصية قارة إلهي بأوي ولي عرف قونية بتنت رسولك صلى الله عليه وسلم أي هنجرتك ندى كالي صحيح ومسلم كالبوليسة وحنوي من دونا قبل الصحابية ده هذا ندول تاجنا نفس البيضة إن رسولك صلى الله عليه وسلم قرر أنتو كقيلو الشدي دبت كيسي أي صوت دريقان جرتي وقرورات أي كشغان جرتي وإبه جرتي يا رسول الله نجعله في ديبنا ونرجو بركته إذا كان كبيرنا إنها قريها إنتان دبت كاقا بيغنو أيام مرسنة إنها إبه جرت مركز سلاسة رسولك صلى الله عليه وسلم جسدا وشعرا وروحا ووحوها أطيب الضيب دبك مدك أدوك بغن أي رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سلاسة وهانجري مقارنة كلام طبيعة بهاش النفط إلا دراسية ومهم بهاش إنجلتها طبيعة هي أماكن كبرته كتاب كان ليراه الحيوان أو إسكالية هي جاحد شيخ جاحد اللي راه وحولية هي القمل يخلق من عرق الإنسان إنجلته وحلقاء أبوراه ليه هي بيت كقفك بني آدم ووسخ جلده هي مقار كيسه ووسخه به لما سأل إلهك أبوراه سبحانه وتعالى هذا قمل بقى العرق القمل يخلق من عرق الإنسان ووسخ جلده قمل وحلقاء أبوراه قفك بني آدم كبيت كيسه ووسخ جلده مقار كيسه وسخ كبرتي أي لقى أبوراه والقمل يعرض للإنسان إذا كثر وسخه والخموم قمله وحكسه الدرية قفك بن آدم كمركي وسخ دي سبلته خموم كيسه وبته خمومك وحلو وجهه والشرك الزايد كاه شرك يسمركو أب وحماده وسخ دي سنة أي بلته مركاسة طبيعاهان بهاشنا اعتمادا إنجلتها وأكرر جاهد كتاب كيسه الحيوان وكليه والقمل يسرع إلى الدجاج إذا لم يقسل قمل الدبيعة لو حاكم يقول حتى بهاشن دجاجة الدورة ويقشاء هذه الدورة عن لقطين والنظافة إذا عن الوجود ذلك دورة نفتح إذا النظافة الوجود ذلك وحي نغطاء دورة قمل أو إنجر بلن أي نغم سلاس أوجد جاهد وحي انت أسكو صوت داري وحي بهاشن قمل لبس سبب يمتكو إذا كرتاسا وكان هذا أصول شيئي ومال وسخ بلن وأريسة وقرمان إن إلهي وكأبوره سبحانه وتعالى هنغط حيوانات ككله أما قفك بن آدم تأجر كيسا هنغطه سبب طلبات يكون إذن كرتو قمل وحاكم دوليه أن يكون الإنسان طبيعة الوسخ والقمل يعني قفك بطبيعاهم بإن إنجر أبشيبا هتسكستو أقضيستو إن إنجره إسكن غناي لذلك مركز وحا اللي إله إليه فلان طبيعي القمل يعني قمله طبيعة إليه أو طبيعة ديس إلهي وحو أبوري هدو قضيستو حتى باشو إنسان كهريني ونرشي سبأي لازميس مركو هالليه هو قمل منكاس إنجرولو لبداس مركا الرماد وباشا طبيعة إكوتي معه لبدا النبي صلى الله عليه وسلم وكفو بيهي إلهنا كفو بيه سبحانه وتعالى وكبري يالي محيالي ماددا أبوه الرئيسوء القمل يخلق من عرق الإنسان ووسخ جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حديث فربانكو أماني ويري النظافة شطر الإيمان نظافة وشطر الإيمان خلق إلهي أبورنا إساقا أقول نظافة بدنا إساقا أنا أمر الجري رسول صلى الله عليه وسلم تاسمرك سورة قلبها إن وسخ أهان
xaggeeda qamligu uu uga yimaado rasuulka sallallahu alayhi wasallam dabeecadda rasuulkana sallallahu alayhi wasallam inta dabeecadaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam la daraasaynayay qof tilmaanta nabiga alayhi salaatu wasalaam dabeecadiisa ku soo dartay waa tabiiciyul qamli ma jirto ilaahayna ka bari yeelay dabeecadiisa inay dabeeca qamliya noqoto oo injir ay noqoto dabeecadeed maxay la dabeeca qamliya qofka marka leeyahay qaabkiisa ilaahay uu abuuray boqol goor hadduu qubaysto boqol goor uu isnadaafiyo baashu ka harmayso waa dabeecadiisa qof intaas nabiga ku sheegtana sallallahu alayhi wasallam ma aysan jirin markii luqa ahaan loo soo laabto ereygan taflii ereyga taflii dhowr lugu ku yimaadaa wuxuu ku yimaadaa taflii fulaanun falaa ra'sa fulaanin bimacnaa mashada waa u shanleeyey waa ku yimaadaa isaga naftiisa waxaan ku soo marnay kitaab alxaj tafliidii oo ku imaanaysa bimacnaa tusarix way shanlaynay ku imaanaysa waxaan ku soo marnay kitaab alxaj waa saxaabigii abu muusa alashcari falat ra'si riwaayo kalena waxay ahayd famashadatnii laba riwaayo isku xigtaan ku soo marnay famashadatnii iyo falat ra'si islaantii madaxaygii shanlaysay riwaayada kale fasiraysay waxay ahayd famashadatnii marka mashdiga iyo shanlayntaas ereygu ku yimaadaa wuxuu kaloo ku yimaadaa ereygan tafli ra'sahu bimacnaa yabxathu ra'sahu can ilqamli wa naxwi madaxiisa wuxuu ka raadinaa ama uu ka baaraa injir iyo wixii la miduhu ka baaraa macnahaasna waa ku timaadaa luqa ahaan laakiin ereygan markii la yidhaaho tafli ra'sahu oo tafliga uu joogo awsaafta iyo tilmaamaha rasuulkeena markuu joogo sala allahu alayh wasalam waxa macnahaas ka leexinaya qaraa'in sharciya oo fara badan adilo fara badana ka leexinaysa oo ah nabiga dabeecadiisa sala allahu alayh wasalam inaysan sidaa ahayn in nabiga sala allahu alayh wasalam shacarkiisa ay ahayd tinta midda ugu uduga badan caraqa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam uba ka samaysnaaba dib iyo udug uu ka samaysnaa dhididka rasuulka sala allahu alayh wasalam adiladaas kaloo la muqaaraneeyo ayaa waxay ku xayiree ereygan tafli in lagu fasiro bimacnaa tusarix wa tamshid waa u shanlaynaysay kaasaa ku xayiraysa adilada kale markii loo muqaaraneeyo midda kale a'immada sharxay ereygan tafli ra'sa maalan markaan soo qaadano culamaa usiyar culimada siirada yani nabigana sala allahu alayh wasalam ka hadashay kitaabkan la yidhaha ashamaa'il oo shamaa'ilka rasuulka sala allahu alayh wasalam looga hadlo sharaxan baajuuri uu sharxay markuu sharxayey ereygan tafli erey la mida wa kaana yafli thawbahu ereygaasuu sharxay wa kaana yafli thawbahu rasuulkana sala allahu alayh wasalam maradiisuu baari jiray ereygaa yafli wuxuu leeyahay baajuuri markuu sharxayey laa yukhraju minhu qamlun rasuulku sala allahu alayh wasalam marna lagama soo saari jirin injir lagama soo saari jirin lianna asla alqamli injirta asalkeedu min alcufuuna baajuuri wuxuu leeyahay waxay ka dhalataa cufuunada waa sida hadda jaahid uu sheegayo oo kale wasakhda iyo qurunka ayay ka dhalataa waman qaala ina fiihi qamlan qofkii yidhaaha rasuulka injira ku sugnayd sala allahu alayh wasalam kaana kaman naqasahu wuxuu noqonayaa qof nabiga nusqaamiyey maraatibtii ilaahay iyo mawaahibtii ilaahay u hibeeyena meel uga dhacay rasuulka sala allahu alayh wasalam saasuu noqonaa buu leeyay imaamu baajuuri oo isagu wuxuu xukumayba inay ka mid tahay yani dadka nabiga nusqaaminaya sala allahu alayh wasalam ama haybadii nabiga sala allahu alayh wasalam mawaahibtii ilaahay uu siiyey qaybo ka mida doonaya inay dhaleeceeyaan inay asbaabta lagu dhaleecaynayo nabiga sala allahu alayh wasalam ay rabaan albaab inay u furaan waana shanigii munaafiqiinta nabiga la dhaleeceeyo sala allahu alayh wasalam waa shanigii munaafiqiinta walidaalika alle subxaanahu wa tacaala hal kelimo oo markii dhinac loo fiiriyaba xataa wanaag u fasirmi lahayd ayuu ilaahay nahiyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu ndurnaa laa taquluu hadhihinina raacina ficilka raacina markii la fiiriyo wuxuu ka yimid luqa ahaan min aricaaya ricaaya oo bimacna yani xifdi ah shaygan in la xafido la ilaaliyo la xaq dhowro waa macno fiican oo saxiixa laakiin kelimadaas maadaama ilaahay uu arkay subxaanahu wa tacaala yahuuddu inay u adeegsanayaan wasiilo ay ku gaaraan aflagaadaynta nabiga sala allahu alayh wasalam maxaa yeele luqadda yahuudda kelimadan raacina waxay u yaqaanaan doqonkiyow ay u yaqaanaan kelimadii luqa ahaan saxiixay ku tahay laakiin waxaa dhici karta kelimadan in wasiilo dadka qaar ay uga dhigtaan nabiga inay ku aflagaadeeyaan sala allahu alayh wasalam saas awgeed ilaahay waa joojiye ilaahay uu xarimo wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انظرنا كبدشة انظرنا كلمة كبدشة راعنا هدهن نور الله سبحانه وتعالى وهكذا جري دولك مصر هذا كور وحكى عدي طبيعي قضية سوحي عدي قرنجي سجالات هي قرنجي طبنات انت ود حيسي قضية حلي سوحا النولا إمام السعودي رحمه الله تعالى ولذا الشيكة أن كتابه كقري السعودي رحمه الله تعالى قضية سوحي هيد لبننا مساجد كهرتيسا مسجد مصر كويلي أي اسكو أفلقادين مساجد كهرتيس سيدا اسكو أفلقادين اسكو عايوين مدى وحو يرمت في كلام اذهب فأنت راعي الغنم أروا نغتدور الإلالية هاي كي كلا سوء بولي وحو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي الغنم ما راعي الغنم أنا يقول أيضاً رسولكم راعي الغنم وها أنا يسوي إلالي جري رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة اسمك إلا فيريو راعي الغنم رسولك صلى الله عليه وسلم كتب السير ودم وحي كتب المامي جميع الأنبياء إلى أري إلى الانجرين وإله سبحانه وتعالى وقلت لقلي هبك التربية إيا أساليب التربية إلى إله كبره إيا الدلقات في الصبرك إله كبره أنبياء لكن مع ذلك قد يدي محكمة دي الله سوكر يالولي وحل جاس جرتي إمام السعودي محكمة دي نكي وحالقو قري إلا تعزيري نكي كلمة تعزيري محايا الكلمة هم بها النغطة لكن أسلوبك اللي أديك سدي خلدم أسلوبك إيا مقامك اللي أديك سدي مقام خلدم مقامك اللي أديك سدي محيطاي وأننا عايدي سي الدفاعي عايدي سي وحورا وإنه اسك الدفاعي لي هذا يعني نبي راعي الغنم وها بل عايدي يغدقيس marka difaac cirdigiisa uu difaacayo oo wuxuu ka dhigtay wasiilo uu ku gaaro inuu kelimada u nisbeeyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam saasa awgeed imaam Saudi rahimahullahu ta'ala qadiyadaas uu kitaab ka qoray leeyahay tanzihul anbiya an tasfihil aghbiya wa kitaab matbuuca oo la daabacay wuxuu ku dhex daabacan yahay kitaabkan al-hawi lil fatawa oo Saudi uu iska leeyahay tanzihul anbiya an tasfihil aghbiya risaalo ka qoray ومركا أولياء شيء أولياء هدو حتى سيرة كمد يهي أو حق يهي هذه بعض العوام سخل دان أي بيع كرتو إلى يفهمان أما سخل دان إلى يؤدي كسدان أي بيع كرتو وحرام أولياء إن لقى الشيء رسول صلى الله عليه وسلم أنا يقاسنا الله نسبه كلمة هو صحراء الغنم لكن هذا لو حدا كرت عوام كي مجتمع هذا اللي جوجو هي حالة هذا اللي جوجو بيئة هذا اللي قلنا لي هاي واحد نقطتي كلمة ذميئة ولا يسكوا في الجادين نقطة marka qofka markuu daraasaynayo kutub siyar uu daraasaynayo ha ku dhex daraasay oo tarbiyada iyo asaaliibta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ambiyada ugu talagalay ha ku sheego mawduuc ahaan ha ugu sheego laakiin inuu meel la istaago oo marka suuratu dhammi iyo suuratu difaac an irdihi iyo oo uu yiraaho raaci al-ghanam banabigu ahaa sallallahu alayhi wasallam waxay noqonaysaa su'aal adab noqonay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam meel looga dhacay وكلمة يعني واضحة أو سير كودان أي قريان محاد لنا كلمة يعني كتاب إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي وود متكمل ولقد لقى مغلين والنبي إنجيل له نسبة صلى الله عليه وسلم محاد لنا وعلى الدين هذه كلمات إسكت وصل هي الدين هي كتبت أي قريان وحنا الدين هي إن دتك قاركود وصيلة أي وقد كتان أما أي كجاران عرض رسولك صلى الله عليه وسلم marka sidaas awgeed in nabiga sallallahu alayhi wasallam loo nisbeeyo ama loo aaneeyo injir iyo wax la mida waxay meel ka dhacay ku tahay shariicada islaamka qofkaasna waxa uu haboon maqaaladaas yiri inuu Ilaahay u toobad keeno subhanahu wa ta'ala Ilaahay uga laabto kelimada sideedana markay jaanib mar walba la fiirinayo shariicada kala maaranto shariicada waxa la yiraahdaa shariicatu yakhdimu ba'daha ba'dan ka a'daa'i al-insan شريعته waxa la yiri waa isku khidmaysaa waa isku adeegtaa sida xibnaha bini aadamka aysan u kala maarmin xibnaha bini aadamka saysan u kala maarmin waxa uu sulkaas waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala faraha uu ugu lamaanayay rasuulka Ilaahay uu noogu abuuray waxa weeye farahaasi kama maarmi karaan sulka marka wax la qabanayo marka wax la soo qaadayo kama maarmaya itaalu siina sulkaas itaalu siina lidalika waxa weeye culimada usul fiqh waxay leeyihiin الشريعة كأعضاء الإنسان يخدم بعضها بعضا شريعة وحوية وحبنها بن آدم كأوكلة حبنها بن آدم كسيسا أوكلة مارمن شريعة مركا هل عضوي أما هل جانب أوكلة أما هل ضرف أوكلة يقف انتو دول استاغو من مدوي كرحوكم شرعيا كقادنا إلى أدلة فربضا وصو آخرية أدلة فربضا وصو مقارنة مركا وحر ووحي